الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما أنت وحى شرف إنه إن بلابا إنه ودوين كلا ميذاها محل هذا مدة دير السوقي وحن رجينا إن شاء الله تعالى وحن كوا فرحنا إن مدحوينها الدولة بنتلان مدحوين كحيانك الدولة بنتلان أحمد علم عثمان كراش وزير كحيانك رماها جودها وزير كحيانك هؤلاء جود قدومية قبلك قلها الديجانك أقاسمها جود وزارة هؤلاء جود أقاسمها شكله هي مدحضة كله هيدا TTN إيو شغالة دولة هوسة ويكمديهين محل هذا أقويها كي قعنت كوهي إلى الله بكري اللحية طبعا كينا هل كان سوق جارسية وحنا هذا قوم هالنقية إن الله لأنت كسو كغيب قاطي بنجي أدونك والعكت أنه وجود دقي محل هذا هيدا يونو OBS ويدنا كنترول كيو ماركتي دبقل كله مدحضة كله الدولة حلو والبنو قرب تاجنيد سيدا يقول كجار لهاين محل هذا مشاريع ذانين فلان شغالة دولة هوسة وجهر إياه حكايها إياه أقسمياشة waxay awoodda ugu tirada badan geliyeen wadooyinkaas sida ay u dhameystirmi lahaayeen dhulkii loogu talagalay oo ahaa dhulkii laamiga laga dhigi lahaa loo heli lahaa waxaan jabinay dhismayaal badan waxa lagu bixiyay kharash badan waxa ka qayb qaatay dad badan waxaan aad iyagana ugu mahad celinaynaa dadka reer Garowe oo maaragtay aad noola shaqeeyay ayaan u mahad celinaynaa maanta waxay maraysaa heerkii fulinta maalinkii la sugayay weeye waxa gacanta ku haysa shirkadda TTN waa shirkaddii dhistay airportka Garowe waa shirkad Turkiya waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu waxa ugu tayada sareeyo noo soo saaro waqtiga ugu kooban hadeerna way ballan qaadeen xaaladaasi waa xaalad aad u wanaagsan marka waxaan leenahay wixii anaga hadda noo dhimanba waa inaan sugno natiijada soo baxda laakiin hawshaasi way bilaabatay maantana madaxweyne ku-xigeenka dhagax dhigay aad iyo aad baad u mahadsantihiin saxaafadana wasalaam iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saxaafadda shirkadda dhisaysay kuwa maalgeliyay ee bixinayay maalgelinta in laalay haweenka shacabka isu soo baxay qorraxdan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi waxaan ka cudur daaranayaa saaka goor hore oo la yimi dadka malcada taagnaa oo haweenka u badan aad baan uga cudur daaranayaa waa ka raali gelinayaa ballama isfuulay runtii qolada ma oran karo Caydi South male nin baa yiri qoladan waxayna siinaysay iyo ballanteena isfuushay iyagii baan horeysiinay marka iyagaan iska xodxodanayna hay kaga qoslinay marka aad baan uga xumay yeelkadeeda waxa weeye natiijada ka soo bixi doonta ayaynu ugu dul qaadanaynaa qorraxdaas iyo tacabkaas inta haddaan ka gudbo cid allaala ciddii bixisay inta ka shaqaysay waa u mahad celinaa waa ku faraxsanahay anigoo wadooyinkan yaqaana iyo shaqaalaha waxaan kale oo ku faraxsanahay shirkadda TTN inay ka shaqaynayso hawshan qabanayso waxa la yiri shirkadda waa aqaana ninka la yiraahdo Taaj Engineerka aad baan u aqaanaa hawlwadaanka Cabdiwali Buuxna waa aqaanaa waxa nin arday oo oday magac leh dhalay baa oday u yimi oo uu shaxaaday waa salaamay marka adeer barwarano nabada kuma ahayd markaas uu yiri ina hebel la ma ina hebel baata ha arina keer gacantu qabtay oo hudheel uu biil ka qaan jiray adeer weyn hebel nafar subag weyn siibuu يعني سو important ugu yahay nafar subag weyn hebel odaygaas aan magac leh shirkadu magac bay leedahay nafar subag weyn in la siiyo ayaan ku talinayaa waayo shaqadeedaan aqaana wixii shaqooyin ah ee la doonayo inaynu qabanno oo raandhiis yeesha runtii oo waliba aan qabo in maxay ahayd ay ku shaqeeyaan budlaannimo oo aanay sida shirkadaha wax goosan hadda
kolley waa joognaado waanu wada hadli doonaa laakiin kuwii ay inooga shaqeeyeen markaan mas-uulka ah airportka way leeyihiin runtii oo dee dalkoodii bay gashadeen sidii loola macaamili karana waa loola macaamilaya laakiin shaqadoodana waa naqaanaa macaamilkoodana waa naqaanaa marka aad baan ugu faraxsanahay waxaan kaloo faraxsanahay dee waataan ka shaqayn jiray meesha oo aan joogay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose dadka jooga maanta aad iyo aad baan maxay tahay aad iyo aad bay ii farxad gelinaysaa kalsooni aan ugu qabaa afartaa waddo ee maanta aynu dhagax dhignay inay waqtiyadii loogu talagalay iyo sidii loogu talagalay ku dhammaan doonaan haddaan meeyarka aqaan oo gobernatoraha aqaan oo counsilka iyo dowladda hoose aqaan iyo cidda gacanta ku haysa hawsha iyada ah aad baan kalsooni ugu qabaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin afartii waddana waa dhagax dhigannay laga bilaabo hadda waxaan ka sugaynaa shaqadii inay bilaabanto waqtigii loogu talagalay ay ku bilaabanto kuna dhammaato ayaynu rajaynaynaa waana ku kalsoonahay sida aan u sheegay ama maamulka ha ahaato ama shirkadda ha ahaatee in aan kalsooni weyn ku qabo kuwiyagoo kalena insha allah saasaynu filaynaa shacabka reer Garowe aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa runtii gartay in waxa leeyahay dhulkaas hadda wadooyinku jiirayaan dad baa leh dadka gartay ee bixiyay kuwa magaalada oo ciriiriya maxay tahay ogolaaday duminta iyo jidadka aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dawladnimada iyo kalsoonida weeye